Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadli doonnaa axkaamta shukaansiga. Waa maxay shukaansigu? Shukaansigu waa wiilka guurdoonka ah oo rabitaan u muujiya gabadha aan weli la guursan, kadibna ay gabadhu aqbasho amase waalidkeedu aqbalo. Shukaansigu guur ma aha, waxbana ma xalaaleeyo, keliya waa ballan iyo isla oggolaansho in mustaqbalka la isguursado keliya oo lagu heshiinayo. Xukunka shukaansigu wuu bannaan yahay marka uu ku salaysan yahay waddadii sharciga ahayd ee diinta Islaamku jeexday. Shukaansiga sharciga waafaqsan wiilku inta uu ku guda jiro waxaa u bannaan inuu arko gabadha si uu ugu qanco bidhaanteeda, isagoo ka fiirinaya wejigeeda iyo gacmaheeda inta hore. Waxa kale oo ay culimmadu banneeyeen wixii hadal wanaagsan ah ee welibana danta keento, sida inay ka wada tashadaan qaabka guurkooda. Maxaa ka reeban muddada shukaansiga lagu guda jiro? Waxaa ka reeban muddada shukaansiga qodobadan soo socda: inay keligood cidlo isugu yimaadaan, in ay ku sheekaystaan hadallo aan wanaagsanayn oo ka reeban dadka ajnabiga kale ah. Waxaa ka reeban inay sawiraan ama hadallo ama qoraallo iyo wax kasta oo kicinaya dareenkooda. Waxaa ka reeban inay istaabtaan amase ay isdhunkadaan iyo waxyaabaha la midka ah. Waxaa ka reeban inuu badiyo kulammada iyo booqashada aan loo baahnayn. Waxaa ka reeban wax kasta oo u soo jiidaya xaaraan. Aragtida wejiga iyo gacmaheeda inta hore ayaa u bannaan, laakiin inuu arko meel kale uma bannaana. Gabadhu ha ogaato mar kasta oo uu wiilkani dhowrsoonaan ku arko inuu sii jeclaanayo, mar kasta oo uu ka dareemo inay tahay mid wax miceshato ahna inuu beddelayo oo uu ku meelgaadh ka dhigayo. Waxaa ka reeban inuu shukaansado gabadh kale oo wiil u doonan, waana arrin aan bannaanayn sharci ahaan inta ay isfahmeen kadib. Uma habboona inuu wiilku kaga baxo gabadha ballanka inta ay heshiiyaan kadib haddii aanu ku arag ceeb aanu filanayn. Ugu dambayn, waxaan odhan lahaa labada qof ee israbta inay isguursadaan oo ay dhisaan guri muslim ah inay ilaaliyaan shareecada Islaamka, xuduudaha ay dhigtay, kana fogaadaan wax kasta oo aan bannaanayn, taasoo u soo jiidi karta cadho eebbe iyo cidhib xumaan. Barnaamijkan waa mid dhiirigelin gaar ah aan ugu talagalay dhallinyarada da'yarta ah, kuwaasi oo inta badan waxyaabo badan khalad fahma una baahan in loo caddeeyo.